رئيس وزراء حكومة فدرالك Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xariga ka jaray xarunta qaran ee amniga shaybaarka oo loo diyaariyay ka jawaabista xaaladaha degdega ah ee ka dhanka ah amniga isgaarsiinta. Ra'iisul Wasaaraha ayaa xuseen daahfurka xaruntani oo muhiimad weyn u leeyahay amniga qaranka maadaama xilligan ay adduunyada jihaysatay dhanka tiknoolajiyadda ayna jiraan falal amniga lidiga ku ah oo ka dhaco dhanka isgaarsiinta, taasi oo ka jawaabi doonto xaruntani lagana ilaali doono macluumaadka hay'adaha dawladda iyo guud ahaan dalka. Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa guul ku tilmaamay hirgelinta xaruntani oo qaabilsan isku duwidda iyo ka jawaabidda amniga shaybaarka, soo gudbinta dhacdooyinka amni ee ka dhanka ah tiknoolajiyadda, iyadoo shacabka Soomaaliyeed laga wacyigelin doono khataraha kaga yimaado dhanka isgaarsiinta. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay la timid qorshe lagu horumarinayo tiknoolajiyadda dalka kadib markii ay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay soo gudbisay in la hirgeliyo hay'adda isgaarsiinta qaranka, taas oo shaqo weyn ka qabatay xoojinta amniga dhanka tiknoolajiyadda iyo horumarinta kaabayaasha dijitaalka qaranka. oo runtii guul ah inaan gaadhnay heer aan maanta ku faani karno shaqadaas oo ah inaan xarig jarnay cyber security. sidaan hadda ognahay dunidu waxay u wareegtay tiknoolajiyad, noloshii oo dhan ayay bays u noqotay, daytada ayaa noloshii oo dhan bays u noqotay. marka in daytada dalka iyo tii hay'adaha dawladda iyo tii shacabkaba la ilaaliyo oo laga ilaaliyo wax alla wixii dhibaato u geysanaya runtii waa arrin muhiim ah. maantana waxaa guul ah inay halkan ku diyaarsan yihiin dhammaan qalabkii loogu talagalay dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoon-yahano ah oo aqoon dheer u leh oo hawshaas u darban inay ka shaqeeyaan. annagana maanta waxay sharaf noo ah inaan xarig jarnay hawshaas. marka waa guul weyn, waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo in aan halkaas ka sii anba qaadno oo ay dhammaan macluumaadka dalka ay noqdaan kuwa ilaashan, hadday noqdaan xafiisyada dawladda waaweyn, dhammaan hay'adaha dawladda, iyo insha Allah inaan rajaynayno in guud ahaan dalka oo dhan in ay noqdo daytadiisa iyo macluumaadkiisa inuu noqdo kuwa ilaashan oo ka ilaashan in la soo weeraro, dibadaha laga soo weeraro, ama cadow soo weeraro, ama laynaga dhex faa'iideysto. guul weyn weeye taasi. waa ku mahadsantihiin mudane wasiir, waa ku mahadsantahay mudane agaasimo, runtii hawshaas aad qabateen waa ku mahadsantihiin. shukran.